kasta inuu madaxweyne doonto qof kasta inuu doonto inuu mas-uul noqdo waxbaa dhalinaya waxaa dhalinaya oo baysku waa in la fahmaa fiican oo laga daayo khaladka loo tarjumayo waxaa arrintan keenaya qof walba wuxuu arkaa sidii uu wax ku hagaajin lahaa waxa u saamaxday inuu marka yiraahdo anigu waa inaan doontaa madaxweynenimo oo aan issharaxaa dimuqraadinimada weeyaa Soomaaliya timekeedu waa up dimuqraadinimada laakiin marka hoose wax laga bilaabo Soomaaliya jirto gudoomiye degmo gudoomiye gobol wixii hoosti kale gudoomiye xisbi meeshaas oo dhan lagama tegin way jiraysaa oo qof walba wuxuu leeyahay background si uu soo qabtay iyo meelo uu soo maray hadhow CV-gaasi somehow waa iska imaan doonaa laakiin muhiimadda su-aashu waxay ahayd maxaa qof walba madaxweyne u doonaya waxay ku saleysan tahay dimuqraadinimada la gaaray oo saxda ah waa taa ugu dambeyntii magaalada London tan kaliya aan ku noolna ilaa 8 ruux baan arkay oo tiri musharax madaxweyne ayaana oo rag dhalinyaro u badan markaan weydiiyo reede musharax madaxweyne ma sidee maaragtay soo wax kama horeeyaan qof walba wuxuu ku leeyahay anigu niyadan ka jeclaado waan doortay inaan gaaraan rabaa ma isleeda waxa Soomaaliya dhibaatada u keenaba waa kursigaas ma isleeda maya siyaabo badan baa dadku wax u fasiraan laakiin mar walba waxa laga fiirshaa meesha saxda ah waxa keenaya qof walba inuu aado meeshan oo u hawoodo waan kugu celiyay mar labaad waxay gaareen dadku time ay ismaamuli karaan oo dimuqraadinimo saxa qofkuna uu xaqiisa garanayo meesha u doonan karo soo aan ku dhibaatoonan marka waa horumar la gaaray oo sax ah 8 waa yartahay baan qabaa waa tahay ciidii baan u soo laabanay musharax madaxweynena waad sheegtay inaad tahay haddii aad salaamaysaa jacasha waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel walba ay joogto dalka gudihiisa iyo dibadiisaba khaasatan waxaan aad iyo aad u dhahayaa ciid wanaagsan ummadda Soomaaliya gudaheeda ku jirta oo kuleel adag ku soontay waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha Somali Team for Reality mudane Cabdiraxmaan Xaaji Cabdulle oo aanu ku wareysanay studio Somali Channel xaruntiisa magaalada London aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay